السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كنا wuxuu ku saabsan yahay waa cashar English ah. Wuxuu ku saabsan yahay sheeko yar oo xiiso leh. Sheekadu waxay ku saabsan tahay markaa hare and a snake, bakayle iyo mas. Okay. Marka ugu horreysa dee casharka waan akhrinaya, waan dulmaraya, kadibna waxa waaye waan sharxi doonaa ila soco. Bismillah. Hare and a snake. Hare and a snake. Hare came home one day and found that Snake had eaten his children. When he met Snake, Hare pretended that he did not know what Snake had done. He greeted Snake and said, "I have just been telling Monkey that you are the longest animal in the forest." But Monkey did not believe it. He said that you are not. Of course, I am the longest. See, I am as long as this tree. Snake said, standing on his tail against a tall tree, "Let me tie your head, your body, and your tail on the tree. Then I will call Monkey to see that you are the longest animal in the forest." Hare tied Snake on the tree and left. He never came back. Okay, markaan ku celinaya. Hare and a Snake. Hare came home one day and found that Snake had eaten his children. When he met Snake, Hare pretended that he did not know what Snake had done. He greeted Snake and said, "I have just been telling Monkey that you are the longest animal in the forest." But Monkey did not believe it. He said that you are not. Of course, I'm the longest. See, I am as long as this tree. Snake said, standing on his tail against a tall tree, "Let me tie your head, your body, and your tail on the tree. Then I will call Monkey to see that you are the longest animal in the forest." Hare tied Snake on the tree and left. He never came back. Okay, waan sharxi doonaa marka. Qisadeena ama casharkeena wuxuu ku saabsan yahay sheeko yar oo dhex martay bakayle iyo mas. Hare waxaa laga wadaa waa bakayle. Snake-na waxaa laga wadaa waa mas. Hare came home one day. Bakayle ayaa yimid gurigiisa one day, maalin maalmaha ka mid ah, and found, wuxuuna helay, that, ama wuxuu ogaaday, ama wuxuu arkay, and found, wuxuu helay, that Snake had eaten, in mas had eaten, uu cunay, his children, caruurtiisa. Macnaha, maalin maalmaha ka mid ah ayaa bakayle gurigiisa yimid. Markuu gurigiisa uu yimid, wuxuu arkay ama wuxuu helay ama wuxuu ogaaday in mas uu cunay caruurtiisa ama ilmihiisa. Hare came home one day. Bakayle ayaa yimid gurigiisa maalin maalmaha ka mid ah, and found, wuxuuna helay, that Snake had eaten, ama wuxuu ogaaday in mas uu cunay his children, caruurtiisa. When he met Snake, bakaylihii markuu la kulmay maska, Snake uu la kulmay, Hare, bakaylihii, pretended, wuxuu iska dhigay, that he did not know, inuusan aqoonin ama inuusan ogeyn what Snake had done, waxa maska ku sameeyay asaga, waxa maska sameeyay inuusan ogeyn ayuu iska dhigay bakaylihii markuu la kulmay maskii. Okay. He greeted Snake and said, bakaylihii wuxuu salaamay, he greeted, wuxuu salaamay Snake, maskii ayuu salaamay, and said, wuxuuna yidhi, "I have just been telling Monkey," hadda dhow ayaa waxaan u sheegayay Monkey, daanyeer, waxaan u sheegayay, "that you are the longest animal in the forest," inaad adiga aad tahay xayawaanka ugu dheer keynta. Okay, waan ku soo celiyo. He greeted Snake, maskii ayuu salaamay bakaylihii, and said, wuxuuna ku yidhi, "I have just been telling Monkey," hadda dhow ayaa waxaan u sheegayay daanyeer, "that you are the longest animal in the forest," inaad adiga aad tahay xayawaanka ugu dheer keenta. But hase ahaatee, laakiin Monkey, daanyeerka, did not believe it, muusan aaminin, muusan rumaynin, muusan aaminin, yacni inaad adiga aad tahay xayawaanka ugu dheer. Macnaha wuxuu ka wadaa, maskii ayuu ka wadaa, wuxuu yidhi, hadda dhow ayaa waxaan u sheegay, daanyeer aan u sheegay, inaad adiga aad tahay masow xayawaanka ugu dheer ee keenta. Laakiin daanyeerka muusan aaminin. He said that you are not,
wuxuuna ku yidhi he said wuxuu ka wadaa yani maankii daanyarkii wuxuu yidhi that you are not inaad adiga aad tahay yani adiga aadan ahayn xayawaanka ugu dheer keynta macnaha daanyarka wuxuu yidhi that you are not the longest animal in the forest inaadan adiga aadan ahayn xayawaanka ugu dheer keynta inaadan adiga ahayn ayuu yidhi daanyarka marka fiiri marka halkan maska wuxuu oran doonaa fiiri of course I'm the longest dabcan aniga ayaa ugu dheer keynta yaa hadalkaas yidhi marka maska oranaya hadalkaas see mujeda see fiiri ama mujeda I am as long as this tree sida geedkan uu dheer yahay ayaan anigana u dheerahay yaa hadalkaas yidhi marka snake said maski ayaa yidhi maski xoogaa marka uu isu bagbagay wuxuu yidhi marka hadalkii xoogaa wuxuu yidhi of course طبعا I'm the longest aniga ugu dheer wuu yidhi see mujeda I am as long as this tree sida geedkan uu dheer yahay ayaan anigana u dheerahay snake said maski ayaa sidaa yidhi standing on asagoo ku taagan marka his tail seentiisa ku haya against a tall tree geed dheer yani geed dheer oo isku xirxiray asagoo geedkii marka isku laalaabay ayuu wuxuu yidhi ma u jeedaa sida geedkan uu dheer yahay ayaan anigana u dheerahay okay wara caddaaday marka haddana marka bakayliya wuxuu odhan doonaa fiiri let me tie your head madaxaada aan xidho your body iyo jirkaaga and your tail iyo seentaadaba aan ku xidho on the tree geedka aan ku xidho marka hadalkan waxaa yidhi bakaylihii wuxuu yidhi marka let me tie your head madaxaaga aan xidho your body iyo jirkaaga and your tail iyo seentaada aan ku xidho on the tree geedka dushiisa aan ku xidho then kadibna I will call monkey daanyar ayaan u wacayaa to see si uu u arko that you are the longest animal in the forest inaad adiga aad tahay xayawaanka ugu dheer ee keynta inaad adiga aad tahay marka bakayle wuxuu wadaa argos ayuu wadaa inuu ka aarsado raba maadaama caruurtiisa uu ka dhameeyay hair tied bakaylihii tied wuxuu xidhay snake maski ayuu xidhay wuxuuna ku xidhay on the tree geedkii ayuu ku xidhay and left wuuna ka tegey he never came back weligiisna uma soo laaban waa sheeko cajiiba wuxuu yidhi marka hair tied bakaylihii wuxuu xidhay maski ayuu xidhay wuxuuna ku xidhay on the tree geedkii ayuu ku xidhay and left wuuna ka tegey he never came back weligiisna muusan soo laaban yani uma soo noqon uu ka tegey geedkii ku xidhay uu ka tegey bes sidaas ayuu uga aarsaday marka bakaylihii maski okay markaan ku celinaya hare and a snake Hare came home one day and found that Snake had eaten his children. When he met Snake, Hare pretended that he did not know what Snake had done. He greeted Snake and said, I have just been telling Monkey that you are the longest animal in the forest. But Monkey did not believe it. He said that you are not. Of course, I'm the longest. See, I am as long as this tree. Snake said, standing on his tail against a tall tree. Let me tie your head, your body, and your tail on the tree. Then I will call Monkey to see that you are the longest animal in the forest. Hare tied Snake on the tree and left. He never came back. sheekadeen halkan ay ku egtahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh